السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan asxaabta waxaan idin leeyahay ramadaan mubaarak. mar labaad iyo casharadeenii taxanaha ahaa. maanta waxaan baran doonaa sida loo qariyo asxaabtaada friendkooda. insha allah marka hore waan tijaabinaa, marka labaadna waxaan eegi doonaa inaynu ka qarinay. marka hore waxaan soo furannaa flightka, mid ka mida ayaan ka raadin doonaa siyaabo kuweed. marka sidaa tahay marka wada aragto inuu 5 kun yahay asxaabtiisa, waxaad doonaysaaba inaad ka qarisid asxaabtaada wax xabad aad ka qarisid. marka hore waxaad soo furanaysaa facebooka marka soo furtid waxaad ku dhufanaysaa saddexda calaamado isdaba yaala. markaad ku dhufatid waxaad kasii dooranaysaa setting and preference. markaad kasii dooratid insha allah waxaad kasii gelaysaa setting. markaad kasii dooratid ood soo dhaafaysa intaas dhan, insha allah waxaad kasii dooranaysaa privacy and setting. ay ku qoran tahay ayaad ku dhufanaysaa. markaa waxaad aragtaa inuu wax badan kuu soo saaray. insha allah inaga waxaan u baahanay marka inaan asxaabta ka qarino. haddaad u baahan tahay inaad historyga ka qarisid dadka public buu ku yahay, iminka waxaad ka dhigan kartaa friends oo keliya. friends baad oranaysaa, ka noqonaysaa. iminka waxaan doonaynaa inaan asxaabteena ka qarino friendska. waxaad ku dhufanaysaa we can use meesha ku qoran tahay. markaad ku dhufatid waxaa kuu soo baxaya option 3-4 option baa kuu soo baxaya. public haddaad dooratid dadkoo dhan baa arkaya, xitaa kayaan kugu jirin. friends haddaad aragtid inta ku friends aan baa arki kartaa. friends accept haddaad dooratidna inta dooratid aan baa arki kartaa. iminka waxaan dooranaynaa only me inaan keliya arkaan doonayaa oo dadkoo dhan ka wada qariyo. only me baad dooranaysaa, saasuu kugu qarsan. bal aan tijaabino inuu qarsoonaan eegno. waxaad gelaysaa facebookii marka horaad eegtay, waxaad kasii dooranaysaa. waad aragtaa inuu noo soo saaray intii keliya aan wadaagno insha allah 130. marka horena waxaa 5 kun. saacadda waxaan rajeynayaa hanaga ilaabina like-ka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.